nool oo caafimaad qaba ayaa lala duugay qofkii lahaa oo ku dardaarmay in sidaasi la yeelo marka ay dhimato sida ay tabinayso warbaahinta Mareykanka. Eegan oo lagu magacaabo Emma oo dhadig ah ayaa la sheegay in foorno la geliyo oo lala gubay meydka islaantii lahayd kadib dambaskooda la wada aasay. Shaqaalaha goob xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala gobolka Virginia ayaa aad isugu dayay inay is hortaagaan arrintan, balse eheladii haweeneyda dhimatay ayaa ku adkaystay in la fuliyo dardaarankeedii. Waxaan soo jeedin in eeyga uu saxiixi karaan qof kale oo xanaanaysta kuwaasi oo si sahlan loo heli karo, balse way naga dhaga adkaysteen, ayuu yiri Garly Jones oo maamula xarunta Justville ee xanaanada xayawaanka gobolka Virginia. Dalka UK waxaa ka jira sharci ogolaanaya in xayawaanka rabaayadaha ah lala duugo qofkii lahaa haddii lasoo buuxiyo shuruudo gaar ah, sida uu sharxay afhayeen u hadlay ururka ay leeyihiin dhakhaatiirta xoolaha ee Britain. Waxa uu sheegay in shuruudaha ay ka mid yihiin in xayawaanka uu yahay mid dhaqan xun oo dadka kale waxyeeleyn kara iyo in aanan la helaynin cid dhaqata qof kale dabadiis. Balse sharciga gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa qaba in xayawaanka rabaayadaha ay yihiin hanti uu leeyahay qofka haysta, sidaas darteedna oo qofka ka yeeli karo sida uu doonayo. Waxaaba jira in qabuuraha gobolkaasi Virginia ku yaala mid ka mid ah uu leeyahay qayb loogu talagalay in lagu aaso xayawaanka. Dhinaca kale, waxtarka uu leeyahay eeyga ayaa waqooyi dalka Thailand soo badbaadiyay wiil yar oo markaasi dhashay oo isaga oo nool ay god ku aastay hooyadii oo 12 jir ah. Wiilkan yar ayaa sida la sheegay waxaa godka ku aastay kadibna isaga dhaqaajisay hooyadii oo 15 sano jir ah si ay waalidkeega ugu qariso ilmahaasi ay dhashay oo aanan lala ogeyn. Eeygaasi oo lagu magacaabo Pimpong oo ayaa lugta ku qoday halkii uu wiilka yar ku aasnaa, kadibna waxa uu arkay lug meel ka soo jeeda sida uu sheegay milkiilaha eeygaasi. Dadka deegaanka ayaa markiiba wiilkaasi ula cararay isbitaalka, waxaana dhakhaatiirtu ay markiiba bilaabeen in ay u qabeeyaan, kadibna waxa ay shaaciyeen in uu weli nool yahay oo uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay. Milkiilaha eeygaasi Usani Seka ayaa sheegay in eeygiisu uu beelay hal lug kadib markii uu jiiray baabuur. Usani Seka ayaa warbaahinta u sheegay sababta aan eeygaasi u haysta ayaa ah daacadnimadiisa inuu ii baari yahay. Waa uu i caawiyaa markasta oo aan beerteeda aado oo aan soo eegayo lo'deeda. Waa ay dadka tuulada oo dhan ay aad u jecel yihiin. Waa mid cajiib ah. Hooyada dhashay wiilkaasi yar ayaa maxkamad la soo taagay, waxaana lagu eedeeyay in canugaasi dayacday iyo in ay isku dayday in ay disho. Sargaal ka tirsan booliska dalkaasi ayaa wargeyska Bangkok Post u sheegay in hooyada da'da yar haatan lagu wareejiyay hooyadeed iyo dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga oo aad ula talin doona. Gabadhaasi yar ayaa sheegtay in ay aad ugu qoomameynayso ficilkaasi ay ku kacday ee ah inay ku go'aastay wiilkaasi yar, waxaana haatan ay labadeeda waalid go'aansadeen in ay koriyaan canugaasi yar.